dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay duqeyn dhawaan ka dhacday qeybo kamid ah gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan degmada Jilib. qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin looga bixiyay duqeymaha dhawaanahan ka dhacay qeybo kamid ah koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbada Dhexe. war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada Mareykanka taliskooda Africom ay duqeyn cirka ah ku qaadeen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa qeybo kamid ah degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. waxayna dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in weerarkani uu ahaa mid qorsheysan oo ay ka fuliyeen qeybo kamid ah gobolka Jubbada Dhexe. waxayna intaa ku dareen in waxyeello aysan soo gaarin dadka shacabka ah, taxadarna laga muujiyay howlgalkan inay waxyeello ku soo gaaraan dad shacab ah. duqeyntan ay sheegeen in garab lagu siinayo ciidamada dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab oo gacanta ku haya badi deegaanada gobolka Jubbada Dhexe. waxaana warka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta u muuqdaa mid gaashaanka u daruuraya warbaahinada kala duwan warar ay qorayeen oo la xiriiray in duqeyn ka dhacday qeybo kamid ah gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan degmada Jilib lagu dilay mid kamid ah dadka ganacsatada ah ee ku sugnaa halka. waxaana wararka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta lagu sheegay in duqeynta lala egtay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo aysan jirin qof ganacsada ah oo lagu dilay. isla wararkaas ayaan ku jirnaa dhinaca kale qoraal goordhow ka soo baxay Al-Shabaab ayaa looga hadlay duqeyntaasi. Al-Shabaab waxay sheegeen in ciidamadoodu aysan ku sugnayn nawaaxiga meelaha ay duqeymahani ka dhaceen islamarkaana duqeyntaasi lagu dilay mid ka mid a ganacsatada sida aadka ah looga yaqaanay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. waxay sheegeen in ganacsadahan uu ahaa maamulihii shirkadda isgaarsiinta Hormuud faraceeda magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. inkastoo dowladda Soomaaliya ay iyana leedahay duqeyntaas waxaa lagu dilay horjooga ama shaqsi ka tirsanaa Al-Shabaab. madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa la sheegay inuu ka digtoon yahay in gacanta ay ku dhigaan milatariga Soomaaliya ee ku sugan qeybo kamid ah gobolka Jubbada Hoose. Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa gabaldhicii shalay waxa uu gaaray degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana degmadaas qeybo kamid ah jooga milatariga Soomaaliya qaarkood. loolanka dowladda Soomaaliya iyo Axmed Madoobe ee ku aadan cidda gacanta ku dhigaysa degmada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa gaaray meeshii ugu sareysay, waana tan keentay in Axmed Madoobe hadda uu doonayo in degmada Bu'aale uu ka weeraro dhankaasi ee gobolka Jubbada Hoose. dhinaca dowladana waxa ay doonaysaa in diyaaradaha Mareykanka iyadoo kaashanaysa duqeymo laga fuliyo degmada Bu'aale si gacanta loogu dhigo. sarkaal hore uga tirsanaan jiray maamulka Jubbaland gaar ahaan ciidamada daraawiishta sheegay in loolanka dowladda iyo sidoo kale Axmed Madoobe ee dhanka cidda gacanta ku dhigaysa degmada Bu'aale meeshii ugu xumeed uu gaaray. wuxuu sidoo kale sheegay in uu ka digtoon yahay Axmed Madoobe shirqool ay u dhigaan ciidamada milatariga Soomaaliya ee jooga gobolka Jubbada Hoose. ujeedkaasi waa iska cad yahay dhinacyadaba waxaad moodaa in qolada kale ay maaragtay iska tiirinayso. Axmed wuxuu rabaa inuu maaragtay Bu'aale inta dowladda aysan qabsan inuu maaragtay dib u qabsado. sidaa ay tahayna haddana maaragtay waxaa moodaa in culays xagga dowladda inuu la kulmayo oo maaragtay oo qolada federaalka aad maaragtay u ciirinayaan. Dhobley lafteeda hadda waxaa ku sugan ciidamo federaalka ka tirsan oo uu hogaaminayo nin la yiraahdo sarkaal la yiraahdo Fatxi Xuseen Cabdi Fatxidiis nin la yiraahdo oo raggii hore saraakiishii hore. marka qolooyinkaas oo military ah waa joogaan oo ayagana Kenyaatiga la degan oo wasaaradda gaashaandhigga federaalka hoosteeda. laakiin waxaad moodaa hadda dhaqdhaqaaqa guud oo Axmed hadda madaxweyne Axmed uu wada inuu yahay mid maaragtay ka dhan ah dib u xoreynta gobolada maaragtay gacanta ka maqan Jubbaland gacanta ka maqan. marka ujeedada hadda ugu weyn waa barnaamijkaas weyn. maya lama dhigi karo ciidamo aad u badan ayaa maaragtay Jubbaland ka jooga deegaanka maaragtay Dhobley iyo deegaanada ku hareeraysan Taabto, Qooqaani ilaa iyo meesha la yiraahdo Afmadow ilaa iyo deegaano kale oo ku dhow ilaa nawaaxiga Hargeysa Yari la yiraahdo maaragtay area Afmadow. marka ciidamo aad u badan oo Axmed ka marqaatay ee dhulkaas. marka lama dhigi karo shaqoola loo dhigayaa raggan saraakiisha iyana mudooyinkii dambe waxay la joogeen Kenyaatiga oo waa ciidamo military ah oo saraakiil maaragtay ninkaas odiga Fatxi uu ka mid yahay hogaaminayay. marka xiriirada dambe oo dowladda ay la sameysay in maaragtay ay ku xoogeysteen maahan mudooyinkii dambe oo raggaasi hadda maaragtay. maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan sharciga doorashooyinka oo dhawaan uu ansixiyay madaxweyne Farmaajo.
madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Xuseen Guudlaawe oo warbaahinta kula hadlayay Jowhar ayaa waxa uu sheegay in maamulka Hirshabelle ay mar walba soo dhaweynayaan go'aan walba oo ka soo baxa dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. Cali Guudlaawe waxa uu sheegay in ay ilgaara ku hayeen sharcigan doorashooyinka markii ay turxaan bixin ku sameeyeen ay ogaadeen in sharcigan uu yahay mid lagu dhisi karo hanaan dadweyne iyo doorasho hal qof iyo hal cod kii qabaa'ilkana lagaga bixi karo. Wuxuu sheegay in maamulkiisa uu soo dhaweynayo arrintan isla markaana dowladda iyo maamul goboleedyadan ugu baaqay inay dardargeliyaan doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda gudaha dalka Soomaaliya. arrinta doorashooyinka aad iyo aad u soo dhaweynayna inay dhacdo doorasho qof iyo cod. raalli ayaana ka nahay inay dhacdo doorasho qof iyo cod oo muwaadin kasta ee Soomaaliyeed cid walba uu codeeyo. raalli ayaan ka nahay waana soo dhaweynaynaa. sharciga doorashooyinka ay baasiyeen ama meel mariyeen labada gole ee dowladda federaalka, golaha baarlamaanka, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ay ansixiyeen aan soo dhaweynaynaa ee madaxweynaha dalkuna oo saxiixay. waxaan qayb ka noqonaynaa haddii ay timaado daruuf ay ku suurageli weyso qof iyo cod dalka intiisa kale tii la qaato ayaan qayb ka noqonaynaa. hadday daruufayba ku suurageli waayaan ay dhacdo dalkaan qayb ka nahay, wixii la qaataan qayb ka noqon doona haddii ilaah yidhaahdo. aadaan u soo dhaweynaynaa arrintaas qof iyo cod doorasho inay dhacdana raalliyan ka nahay, laakiin waxaan ku talinaynaa waqtiga inta ka dhiman dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in la iska kaashado amniga dalka. si kastaba ha ahaatee dadka u dhuunduleela arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa ay qabaan in hadda aysan macquul ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo Soomaaliya maadaama caqabado dhowr ay ku horgudban yihiin loona baahan yahay in jaanis kale la siiyo dowladda hadda jirta. Al-shabaab laga saaro deegaanada ay ka maamulaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, maamul goboleedyada wadahadal lala galo, arrinta Somaliland la soo afjaro, arrimaha dastuurka iyo maxkamad dastuuri ah la yagleelo. sidaas ay sheegayaan khubarada qaarkood in ay weli caqabadahaasi jiraan ilaa inta laga xalinayana aysan macquul noqon karin doorasho hal qof iyo hal cod ah oo ka dhacda gudaha Soomaaliya.